habeen wanaagsan saaxiibayaal soo dhawaada caawa muuqaalkeena waxa aan ku falanqeyn doonaa ama aan diiradda ku saari doonaa tartanka kubadda cagta degmooyinka maamulka gobolka Banaadir oo si habsami leh ugu soconaya caasimadda dalka ee Muqdisho. Intiina la socota tartanka kubadda cagta degmooyinka maamulka gobolka Banaadir oo u dhaxeeya 20 degmo ee ka kooban gobolkan Banaadir iyo 2 degmo oo marti ku ah waa Warshiiq iyo Balcad ayaa si habsami leh waxa uu socday maalmihii la soo dhaafay magaalada Muqdisho iyadoo ugu dambeyntii final la wada gaaray. Haddii aynu dib u eegno 26 bishii hore ee September ayaa tartankan ee kubadda cagta degmooyinka gobolka Banaadir ra'iisul wasaaraha dalka daahfuray. Waxaana la soo ciyaaray qaybo kala duwan oo tartankani uu ka koobnaa sida is-argyada koowaad, garuubyada, afsideedamaadka, afardhamaadka ugu dambeyntii hadda final la wada jooga. Kooxo badan oo loo rajeynayo in koobkan bilowgiisii ay qaadi doonaan ayaa sideedamaadka iyo is-argyada koowaadba natiijo aan wanaagsaneyn ka keenay iyadoo ugu dambeyntii is-argyada sideedamaadkaba ku haray. Waxaana degmooyinkaasi ka mid ah Hodan, Warta Nabadda iyo degmooyin kale. Afardhamaadka waxaa ku haray Dharkeeley iyo sidoo kale Karaan oo ah championka sanadkii hore. Karaan ayaa difaacanaysa koobkan, Dharkeeleyna waxa ay kamid ahayd kooxaha ugu tunga weyn ee tartankan oo si wacan ugu muuqday. Haddaba finalka ayaa waxaa isla gaaray Howlwadaag iyo Warshiiq. Maxaan ka naqaanaa taariikhdooda? Howlwadaag waxaa laga diiwaan gelinayaa in ay 24 sano kadib iska xaadirisay final. Tartanka degmooyinka gobolka Banaadir oo ah tartan xiiso leh kan la qabta ee Soomaaliya oo dhanba midka ugu xiisaha badan ayaa haddana waxaa la sheegayaa in degmooyinka ee gobolka Banaadir tartankan ay aad ugu loolami jireen. 24 sano kadib ayaa hadda Howlwadaag is xaadirisay. Waxa ayna doonaysaa in 24 sano kadib koobkan ay qaado. Halka degmada Warshiiq oo marti ku ah ciyaarahan waa tartanka kubadda cagta degmooyinka ay iyaduna tahay kooxtii ugu horeysay ee lagu marti qaada kulamadani aan laga badin final la soo gaarta. Waa taariikh cajiib ah ay qortay Warshiiq. Howlwadaagna waxay u socotaa in taariikh kale oo 24 sano kadib ay iyaduna koob qaado oo degmooyinka hormuud u noqoto. Waa tartanka degmooyinka championka hadda Karaan ay difaacanaysana ay iyada booskeeda bedesho. Warshiiqse waxay leedahay anigu waxaan ahay marti balse hadda waxaan noqday tartame oo waxaan taaganahay final koobkaana inaan Warshiiq ka dajiyo ayaa qorshahaygu yahay bay taagan yihiin. Aan halka kaga gudubno taariikhahaasi iyo dabcan maalinta Jimcaha soo socota oo 30 bisha hadda aynu ku guda jirno aynu arki doonaa waxa laga diiwaan gelin doono iyo cid qaadi doonta koobka finalka maalinta ayaa la ciyaari doonaa. Balse muuqaalada aad ku arkaysid baraha bulshada ayaa waxa ay noqdeen kuwa aad xiiso u leh. Amniga magaalada Muqdisho ayaa waxa dareemaysaa inuu noqday mid isku haleyn karo oo aad u soo hagaagay. Dhalinyarada oo ka kala yimid degmooyinka ee ka kooban yahay maamulka gobolka Banaadir iyo Balcad iyo Warshiiq kuwa ka soo safra ayaa waxa ay dareemayaan in ay ku naaloonayaan nabadda iyo horumarka iyo waliba xasiloonida caasimaddu ay hadda haysato ee ay ku naaloonayso. Taageerayaal tiro badan ayaa garoonka buux dhaafiya maalin waliba. Garoonka Stadium Muqdisho oo ka mid ah garoomada ugu waaweyn Afrika oo qaadkiisa lagu qiyaaso 70,000 oo qof inuu qaado ayaa waxaa la filayaa finalka in meel la istaago la waayo maadaama dhalinyarada magaalada Muqdisho ay yihiin kuwa aad u xiiseeya ciyaaraha. Maalmihii la soo dhaafay tartanka ayaa waxa uu maalinta ka sii dambeysay uu noqonayo mid xiiso leh. Degmooyinka la soo celiyay ayaa waxa ay gambar u dhigan jireen degmooyinka kale ee iyagu ka badiyay halka ay ka soo horjeesan jireen oo kooxda markaasi ay u baxayaan ay taageeri jireen. Balse hadda ugu dambeyntii 20 degmo iyo 2 degmo oo martida ku ahaa marka la soo wada geeyo 22 degmo ayaa tartanka qayb qaadanaya. 2 kaliya ayaa final joogta. Hadda waxaa loo kala safan doonaa oo taageero loo wada noqon doona labadaasi degmo. Sida ayaana la filayaa in garoonka uu ku buux dhaafiyo. Maalintaasi Jimcaha ayaynu dabcan natiijada ka soo bixi doonto aynu dhowri doonaa amniga markii aanu soo laabano. Magaalada Muqdisho xilli waxa ay soo martay amnigeedii aan la isku haleyn karin. Ciyaarahuna waxa ay qayb weyn ka qaateen isdhexgalka bulshada, is-aaminaadda iyo waliba in laga fogaado waxyaabaha keeni kara
amni darada nabadgelyo xumada iyo weliba xasiloonida dhalinyarada waxa ka qaadi kara. Dhalinyarada ayaa waxaa marka ay ciyaaruhu socdaan taageerayaan kooxaha kala duwan, halkaasna ay ku muujinayaan sida ay ugu faraxsan yihiin, amniga ay u haystaan, dalkoodan ay u aaminsan yihiin. Ciyaaraha markii laga hadlayo waa isdhexgal bulsho, waxaa la yiraahdaa ciyaaruhu waa kuwa ka caagan oo aan lagu dhex arkin qabyaalada iyo maxaa la yiraahdaa nabadgelyo xumada. Waxa ay si weyn ugu qayb qaadataa horumarka, xasiloonida, amniga iyo soo bandhigida bilicda ee dalku uu leeyahay. Falanqeeyaasha ciyaaraha ayaa waxa ay sheegayaan in tartanka kubadda cagta degmooyinka gobolka Banaadir uu yahay mid aad u xiiso badan oo kana hadda sanadkan uu ka duwan yahay sanadihii hore, maadaama ay Soomaaliya ama gaar ahaan magaalada Muqdisho noqotay magaalo xasiloon, amni ah, dhanka horumarkana ay aad ugu sii baahaya ama laga dareemayo in horumar baahsan laga gaaray. Adigu ahaan dabcan waa la socotay ciyaarahan iyo weliba kooxo kala duwan ayaa taageeraysay. Baraha bulshada waxaad ku arkaysay dhalinyaro muujinaya dareenkooda iyo shucuurtooda. Adigu sidee ayaad u aragtaa tartankan kubadda cagta degmooyinka gobolka Banaadir? Maxaase filanaysaa 31 oo maalin Jimcaha finalkan? Ma Warshiiq ayaa koobkan ka dejin doonta Warshiiq, mise Howlwadaag ayaa 24 sano kadib xaqiijin doonta inay tahay championka degmooyinka gobolka Banaadir? Aragtidaada waa inoo muhiim. Aad u mahadsantahay.